بسم الله. waxaan bilaabaynaa sharaxaada. waxaan rajaynayaa qof kasta inuu haysto buugga Mufangir Khadojun Soomaalish. Ardayda intaan haysan qora insha Allah billahi ama hadhow videoga ka qorto. casharka wuxuu inoo ku yeelaa buugagaasi hortiina ku qoran. For example, fiilin wuxuu inoo ku taalaa buugga 447, fiilin wuxuu inoo ku taalaa buugga 388. buugga labaad markaanu tagnana saas oo kaleeto insha Allah. maanta waxaanu qaadanaynaa waa erey iyo word. waxa laga yaabaa casharada qaar inay xoogaa idinka leefal sarreeyaan. oo maalinkii aynu qaadanayno erey iyo word ama waxaynu ugu yeedhnay ereyo iyo weedho ma fiirinayno leefalka. sababtuna waxaynaan u fiirinayno waxaynu rabnaa ereyo isku bah ah oo isku kategoriya oo isku leefal oo dadku isku xiftin karaan inaynu hal mar isla dhigano. haddaynu laakiin aynu iska raacno niraahno maxaa aynu lagu bartaa ereyada dabadeedna aynu saas ku joogno xoogaa waxa idinku adkaanaya fahamka. marka si aynu buugga Mufangir Khadojun Soomaalishna u fududayno oo inta badan inuu baranaamo inta ugu muhiimsan fahamkii xifdiguna inuu ku fududaado waxaynu maalinka buugga la dhiganayo dhiganaa ereyo isku baha. ereyadaas beesas kala duwan bay ku yaaliin buugga markii la fiiriyo oo raay forgi maaha. dhinaca kalena markii la fiiriyo iyaga iyo siday kategoriga luqadda kala jiraana way kala duwan tahay. laakiin Soomaali maadaama aan ku sharaxayo waxaan rajaynayaa inaad fahmaysaan. fiilin macnaheeda afka Soomaaliga waa doorasho. macnaheeda afka Soomaaliga waa doorasho ama wicid. wicidna waa loo isticmaalaa laakiin macnaha wicidda aad buu u yar yahay oo aad looma isticmaalo. inta badan waxa laga yaabaa xayeysiisyada iyo meelahaas inaad ku aragtid marka aad looma isticmaalo. mararka qaar bay waxay la macno noqotaa unproven oo waxay samaysaa macno sidaas oo kale ah laakiin macnahaas uma badna. macnaha ay mashhuurka ku tahay oo aadka loo isticmaalo inagana ay tahay inaan ku barano waa doorasho. tusaalayaasha ayaynu insha Allah ku fahmaynaa sidee jumlo loogu dhisay. for example, waan dooranay, waa lagu doortay, waa la doortay, waa la dooranayaa, yaa dooranaysaa, yaa dooran doontaa, yaa la dooranayaa. ereyadaas oo dhan ayaa loo isticmaalaa. yani doorasho algemein. tusaale, wenn wird sie wählen? wenn wird sie wählen? yaa dooranaysaa, yaa dooranaysaa. doorashaa socota qof baa waxa rabtaa cidda uu dooranaya inay ogaato. wenn wird sie wählen? yaa dooranaysaa. Die Jury wählt den Sieger des Wettbewerbs. Die Jury. garsooraha jury waa garsoore. wählt wuxuu doortay den Sieger. den Sieger guuleystaha. garsooraha wuxuu doortay guuleystaha. Sieger waa guuleyste. Siegin ayay ka timi. kelmaddaas ayay ka timi. Sieger, Gewinner waa isku macne waxba uma dhaxayaan. Aydan die Jury garsooraha wählt wuxuu doortay den Sieger guuleystaha des Wettbewerbs tartanka. guuleystaha wuxuu doortay garsooraha wuxuu doortay guuleystaha tartanka. garsooraha wuxuu doortay guuleystaha tartanka. yani garsooraha ayaa doortay cidda tartanka ku guuleysatay. isaga yiri hebel ayaa tartanka ku guuleystay. Der neue Vorsitzende. Der neue Vorsitzende des Vereines wird bei der Sitzung gewählt. Der neue Vorsitzende des Vereines wird bei der Sitzung gewählt. gudoomiyaha cusub ee ururka shirka ayaa lagu doortay. gudoomiyaha cusub ee ururka shirka ayaa lagu doortay. Der neue Vorsitzende. Vorsitzende waa gudoomiye, waa nin gudoomiyaha. neue waa cusub. Der neue Vorsitzende gudoomiyaha cusub des Vereines ee ururka wird bei der Sitzung gewählt. shirka ayaa lagu doortay. gudoomiyaha cusub ee ururka shirka ayaa lagu doortay. doorasho. Das Wahlrecht war beschränkt. Das Wahlrecht war beschränkt und nur Männer konnten wählen. das Wahlrecht حقوق codbixinta war beschränkt way xadiisneed. حقوق codbixinta
way xadaysnayd unua mena konton felen nimanka keliya ayaana wax dooran kari jiray xaquuqda codbixinta way xadaysnayd nimanka keliya ayaana wax dooran kari jiray waagii horeeto Yurub xaquuqda codbixinta way xadaysnayd cid kasta wax ma dooran kari jirin for example dumarka oo kaleeto waxba ma dooran jirin ragga bes ayaa wax dooran jiray dumarka lamana dooran jirin waxna ma dooran jirin marka xaquuqda codbixinta way xadaysnayd das Wahlrecht xaquuqda codbixinta waa beschränkt way xadaysnayd unua men konton felen nimanka keliya ayaana wax dooran kari jiray fal laga soo gudbay imperfect nimanka keliya ayaana wax dooran kari jiray bitte wählen Sie diese Telefonnummer bitte wählen Sie diese Telefonnummer uns zu kontaktieren fadlan telefonkan hoose wac si aad noola soo xiriirid oo macnaha idin sheegayo idin laha siyar yani in yar baa la isticmaalaa aad looma isticmaalo wicitaan felen marba wax noqotaa wicitaan laakiin aad looma isticmaalo for example bitte wählen Sie diese Telefonnummer maxaa laga wadaa telefonkan dooro maya waxaa laga wadaa telefonkan wac una soo kontaktiyan si aad noola soo xiriirid telefonkan wac si aad noola soo xiriirid laakiin macnaha saas loo isticmaalo aad yani badanaa la isticmaalo ma aha kaliya waynu iska baranayna so fehlen khalad oo wicid ama ku khaldamid so khalad oo wicid inaad qof si khaldan u wacdid qof baa rabtay inaad wacdid telefon kale ayaad wacday qof kale ayaad si khaldan u wacday ama ku khaldamid waa ku khaldamtay khaladka waxa looga jeedaa marka telefonka ayaad looga jeedaa yani khalad oo wicid ku khaldamid inaad telefon ku khaldantid oo si khalad u wacdid ayaa looga jeedaa ama adiga telefon si khalad ku soo waco khalad oo wicid ku khaldamid loogama jeedo ku khaldamidihii kale waxa looga jeedaa ku khaldamid oo dhinaca telefonka ah saas ayaan uga jeedaa so fehlen khalad oo wicid ku khaldamid tut mir leid waan ka xumahay yani telefon baa way igu soo khaldantay waan kugu soo khaldamay waxaan u maleynayaa telefonka inuu ka khaldan yahay telefonka iga khaldamay macnayaashaas oo dhan fehlen ayaa loo isticmaalaa waxaan maalin arkay yar aan la joogo telefon si khalad u soo wacay du falsch anruf buu leeyahay du falsch anruf ma hane waa fehlen so tusaale tut mir leid Sie haben sich verfehlt tut mir leid waan ka xumahay Sie haben sich verfehlt telefonka wuu ka khaldan yahay waan ka xumahay telefonka wuu ka khaldan yahay qof baa ku soo garaacay waxa ogaatay qofkan ku soo wacaya ama telefonka soo wacaya in uu yahay qof telefonka ka khaldan yahay magacaadan kaaga ahayn buu kugu yeeray waxaadan garanayn buu kala hadlay tut mir leid waan ka xumahay Sie haben sich verfehlt telefonka wuu ka khaldan yahay waan ka xumahay telefonka wuu ka khaldan yahay qofka waad ka shakiday maba hubtid inuu telefonka khaldan yahay iyo inuu adiga ku doonayay laakiin shaki waa ka galay ich glaube Sie haben sich verfehlt waxaan u malaynayaa Sie haben sich verfehlt in telefonka ka khaldan yahay tan hore waxaad tiri telefonka wuu ka khaldan yahay waan ka xumay waad oran kartaa waxaad kale oran kartaa waxaan u malaynayaa in telefonka ka khaldan yahay ich glaube waxaan u malaynayaa Sie haben sich verfehlt in telefonka ka khaldan yahay in telefonka ka khaldan yahay ayaan u malaynayaa adigii baa telefon khalad u wacay kan kubii ku soo wacay buu ahaa adigii baa waxa wacday telefon khalad ah entschuldigen Sie bitte ich habe mich verfehlt fadlan iga raali ahow waan soo khaldamay si khalad ayaan ku soo wacay iga raali ahow qof baa wacday markaa wacdaa waxaad ogaatay inaad telefon ku khaldantay aan telefonka doonaysay ahayn entschuldigen Sie bitte fadlan iga raali ahow ich habe mich verfehlt waan kugu soo khaldamay so sich verfehlen waan kugu soo khaldamay entschuldigen Sie bitte ich habe mich verfehlt ich glaube Sie haben sich verfehlt tut mir leid Sie haben sich verfehlt so jumlooyinkan waad ka dhigan kartaa wuu khaldamay way ku soo khaldamtay wuu ku khaldamay kuwaasna waad ka dhigan kartaa so waxaan rajeynayaa in qof kasta uu fahmay qof kasta inuu fahmay baan rajeynaya qofka su'aal qaba hay weydiiyay insha Allah billahi karim seeno ugu gudubna wada sheekaysiga markaas insha Allah